waxaa muddooyinkii u dambeeyay si habsamiya uga socda degmooyinka gobolka Hawd iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee hoostaga gobolka Hawd talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19. Talaalkaasi ayay bulshada ku dhaqan gobolka Hawd ay ka qaadanayaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolka Hawd. Isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ee gobolka Hawd, Axmed Cali Dareyse, oo maanta u waramay warbaahinta qaranka Somaliland, ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19 iyo sida ay bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Hawd uga faa'iideysanayaan talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19. talaalkan COVID-19 ee ka socda Jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan siyaasadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ama ahaato wasaaradda caafimaadka ama ha ahaato qaranka guud ahaan من مدحوينها قرن كسمونية سوماليلاند موسى بيح عبدي إلى وزير كوزارة عافمادك أيها هيك نقولشرا قاضي الشدا طلال كوفيد 19 هي برشدة تام معناه دو وحويه قرن كهذا من وحكش قينيا إنه قفل بجيت كهستي سوق كيو جارسيو طلال كوحق ولي أنا قلنا وحنو مانتا كامبين كوجشنا بيشدان وحويه سلام طلال كو جارسين هاين bulshada ka faa'iideysanaysa aad buu talaalku wanaagsan yahay sidoo socdo boqolkiiba 70 waa la qaatay 30 ka dhiman waxaan lagu soo gabagabayn doonaa muddada gaaban ee oo hadhay ee 7 cisho haddii alla yiraahdo. Isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Hawd, Axmed Cali Dareyse, ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Hawd isagoo ugu baaqay inay qaataan isla markaasina ay ka faa'iideystaan muddada uu socdo talaalka ka hortagga xanuunka COVID-19. waxaan u dirayaa ummadda reer Somaliland si gaar ahaan bulshada gobolka Hawd in waqtiga gaaban ee u haray inay qaataan talaalka. talaalku waa laba talaal, waxa weeye AstraZeneca hore loo qaatay iyo Johnson talaal oo cusub oo ay isku laba mar kaliya ah qofku uu qaadan soo noqnoqonayn. AstraZeneca hore u bixin jirayna waxa qaadanaya qofkii talaalkii koowaad qaato kii labaad la siinayo. saadarteed waxaan dileenay walaalayaal ka faa'iideysta qaranka oo dhan gurmadiin ku jira. dhaqaalaha la soo galiyay talaalkan waa dhaqaalaha aydan mareynayn lacagta lagu soo bixiyay. waxa caafimaadkiina looga shaqeynaya geedgeedin ku geenayaan waxa weeye sida aynu uga badbaadi lahayn. ilaahay inama wada keenee xanuunkan ilaa maanta ilaa maalintii dhimashada Somaliland ilaa 500-600 bay maraysaa. taa macnaheedu waxa weeye xanuun noocan weli mayna arag. waa inaynu ka badbaadinaa ubadkeena reerkeena iyo gurigeena insha Allah taala. Maxamed Jiir Ahmed iyo Cabdinatiib Dayb Cismaan, TV qaranka Somaliland, magaalada Balli Gubadle.